السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. hooyo adigoo raalliya waxaan jeclaa inaan kaala sheekaysto dhacdo ka dhacday deegaankeennan oo ku cusub geyga Soomaalida aynu odhan karno way ku cusub tahay amba deegaankeennan way ku cusub tahay oo dad Soomaaliyeed qoys Soomaaliyeed lagu laayay carruur iyo waalidkoodiiba dadna lagu dhaawacay dhibaato badan ay ka dhacday su'aasha ugu horreysay ku weydiinaya waxa weeyaan hooyo qoyskaasi maxaad isku ahaydeen Hooyaan waxay markuumada hooyaan. Carruurtana ayiibaan. waayahay in allah wa inna ilaahi raajicuun maxaad sidee hooyo u dhaceen Waxay u dhiceen hooyo way iska soo nabad geliyeen. Way iska soo seexdeen oo la iska nabad qabin. Masiibada aad nolosha soo dhacday. Dadkii waa 10 afar way dhinteen intii kale waa. okay in allah wa inna ilaahi raajicuun runaantii waa qiso aad u murugo badan aad u xanuun badan qof kasta oo muslima amba Soomaaliyeed oo maqla una adkaysan kareynin in la laayo qoys dhan oo soo hoyday oo carruur iyo maati u badan iyo waalid u badan aad ayaan idinka tacsiideynaya runaantii maxaad ka codsanaysaa hooyo bulshada Soomaaliyeed Bulshada Soomaaliyeed hooyo waxaan ka codsanayaa dal iyo dibadba taageero xoog leh oo la igu garab joogsado carruurta yaryar wax la igu qabto. Waxaan ka codsanayaa hablaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka. Waxaan ka codsanayaa meelaad joogtaanba inaad gacanta isku qabsataan wixii tartaan. Waxaan ka codsanayaa amaalkayse inaan abaal intuu goobin inaan u hayo. Waxaan ka codsanayaa dhibaatada dhacday tu laga tira koobi karaya anaga waa wada sheekayn karaya. Waxaan ka codsanayaa gurigii ay ku dhinteen oo fadhiyo oo dhan oo wakiil. dal iyo dibadba in la soo caawiyaan doonaya. Carruurta wax la igu taro. Wax qaan gaaray male. wax qabsanaya male. waa dadka daciifka ah. waayahay su'aasha u dambaysan ku weydiinaya waxa weeyaan hadda dadka dhintay amba la laayay imsa carruur imsa dad waaweyn waa labadii dhalay iyo laba yaryar. labadoodii waalid iyo laba carruura dadkii guriga joogay oo dhan markaa waa wada dhaawac dadkii guriga joogay qof dhaqaaqaya laguma arag qof ugu soo horgalana aniga waalidka ugu horreeyay. su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa weeye hooyo bal qaybta dhimatay maahay Allahu naxariisto qaybta dhimatay qaybta dhaawacana Allaha caafiyo qaybta dhaawaca ka waran xaaladooda wax dareen lihiyo wax wali hadalkoodii isku dhex jiraba way leeyihiin oo مثلا dareenkooda isku dhex jira aan wali dadka aan hadalka saxayn aad iyo aad wad maasantahay hooyo aad iyo aad wad maasantahay